السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قيمة يقدرين تمضان بان دين سلام يا ملك صدافة عالم كاد كجوكتان سودوا صاحب يال هل كان إذا موقته وحفظ لي سيد ركتانا بوق قيله صوحا إيرك بدوته أي هل كان كاغا موقدو هل كان كمدعين وحدة قال وليبا مجرته وحبا نبح لكن وحا كجرته وحلي رادو دبالدك qolo walbo iyo dal walbo wuxuu leeyahay dhaqan u gaar ah raggan aad arkaysaana way dabaaldegayaan kaaga daranne mid kamid ah raggii ay dharka ka siibeen waliba wadadii ay maalin caday ku wadan ayagoo u dabaaldegayo hadaba sababta ka dambayso ninkan weyn ilaah baa weyne dharka laga siibay maalin caday wadada lagu wado loona dabaaldegayo sirta ku duuganna waan kula wadaagi doonaa halkan waxa kale oo kaaga muuqato waa naag Kenyan ah hadaba naagtii ayaa markale waxay ku baraarugtay gabar yar oo xijaaban hoos boy ka wadata in shareer xiran hadana hoos wax u aqrinaysa kaaga darane alaabtan digitalka ay wadataa alaabtan qofka markii wuxuu aqrinayaba haduu salig nabi yahay hadii istighfaarta tahay waxay ahaataba wixii markaas asiga goolkiisa uu yahay inuu aqriyo oo ilaahay ugu dhawaanayo ee tasbiixda noocyada kala duwanba boqol markay gaarto qaarkood si automatic ah sida saacadii oo kale ay u shanqartaa naagtan Kenyanka markii ugu horeysay ay ku aragto qof ay alaabtan ahayd waxay bilowday inay naxdo jareyso ayada oo moodo inay tahay bam diyaarad ay la raacday hadaba falcelinteeda kadib markii si tartiib ah ee u weydiisay waliba ayadoo baqaysana xog ku saabsan muuqaalkaasna waan idin la wadaagi doonaa halkan idin muuqato waa Congo tahriibayaasha idin muuqdana waxay saarnaayeen badda lagu magacaabo Ziwa Congo Beach waa 500 oo qof oo tahriibayaal ah dadka tahriibayaasha waxa kamid ahaa Suudaanta Khartoum muuqaalkan waxa soo duubay qaar kamid ah darawaliinta Soomaaliyeed ee halkaasi u shaqo tagay kadibna in yar ku dalxiis isiri halka idin muuqato laakiin mar kale la kulmay dhacda halkaasi ka dhacday halkaasi markabkii oo idil ayaa qoosay waxaana ku dhintay dad kor u dhaafaya 50 qofood talow Soomaali miyay qayb ka yihiin xog ku saabsan guud ahaan muuqaaladaas iyo kuwa aan qarinayaba halkan ayaan kugu la wadaagi doonaa intaas u gudagelin hadaysa tahay booqashadaadii ugu horeysay waxaan si xushmad ku dheehantahay kaga codsanaya walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan sidoo kale waxaan si xushmad ku dheehantahay kaga codsanayaa inaad muuqaalka inoo qurxisaan oo aad laagta iyo share-ta aad soo kandartaan si muuqaalkeena uu u gaaro saaxiibo adigoo kala qalbi wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo marxiga muuqaalka ugu horeeya ee aan soo qabanayo wuxuu yahay musiibada halkan ka dhacday ee Congo ee la yiraahdo Ziwa Congo Beach dad tahriibayaal ah ee lagu qiyaasay 500 oo qofood ayaa markabka saarnaa laakiin mar kaliya ayaa markabkii qoosay muuqaalkan runtii waxa ila soo wadaagay mid kamid ah dhalinyarada aadka inoogu xiran channelkeena halkaana alaabaan ugu mahad celinayo dhacdooyinka inaga qarsoon oo nala wadaagayo waxa la sheegay dad kor u dhaafay 50 qof inay ku dhinteen laakiin ilaa hadda lama xaqiijin dalalkii ay ka soo jeedeen intii muslim ah ee halkaasi ku dhimatayna waxa leenahay ilaahay ha u naxariisto intii nool oo ilaahay ka badbaadiyana nolol qurux badan ayaan u rajaynaynaa muuqaalka xiga ee aan idin hay ayaa wuxuu yahay naagtan idin muuqata ee Kenyanka ah ayaa markii ugu horeysay la kulantay gabar muslimad ah waliba ka wadata kan horumaysa aqoonin naagtan waxay sheegtay ayada oo diyaaradda saaran iyo gabadhan oo si hoos u aqrinaysa waliba isticmaalaysa halka lagu xisaabsado adkaaraha noocyada kala duwan bal yaan wardi ku dirin ayada hay noo sharaxdo bal waa kan muuqaalkeeda aan isla daawano. Hey, so let me tell you about this thing. So one time we were cruising over Mediterranean Sea. So this lady, an Islam, you know, how do I know that? Okay, I don't know, maybe I could be wrong. Lakini alikuwa amevaa buibui ya black, alafu akachio kitu kamacho tu. Sasa akachukua kitu akavaa hapa at some point, you know. Pole.
naongea na base ni homa. Hey! Sasa during the journey she kept on pressing that thing. Nikakuwa so concerned and I was like, oh my God. And remember, I'd never seen this thing in my life before. It was my first time seeing it. Then I'm asking God, sasa hii ni nini? I started revershanding barakakakakakaka. Because me had seen a bomber. One time she pressed, ikalia na the same warning ya ndege. Dudu. Nikasema tumeenda chini. Wapi? Kwa sea, kwa maji. Then nikashindwa. Mungu, tumetoka 11 hours ago just to come and pick this lady because we had a stopover. You know, the rest with the travelers. Akuja tuwe. Wacha nipande na pressure. Wacha nisikie stress. So nikaenda kwake nikamuuliza, what is this that you keep on pressing? Because me, I was like, no, I will not allow myself to die. Kama ni bomb me tunafinya, nakatoa kwa kidole yake. Then she went ahead and told me, my dear, this is a timer. I think now it's a timer they used to pray with. So every time una pray, something like that. I have never felt so stupid. daawadayaal ugu dambeyn waan filayaa muuqaalka gabadha inaad si wacan u daawateen. haddaba gabadhan waxaad dareemaysaa in qalbigeeda iyo qulubteeda laga buuxiyey isir nacaybka ee qaar ka mid ah dadku u qabaan diinteena macaan ee islaamka. haddaba baalka dijitaalka ah ee wadatay ayay waxay u mooday in ay rabto naagtan muslimadda ah xijaaban in shareerka wadata inay rabto inay isqarxiso. waxay tiri aayar ayaan u dhawaaday anigoo isla hadii ay ku sheegto inay rabto inay isku qarxiso inay ka dafto. waan baqayay tiri aad ayaan uga cabsanayay maadaama bahalkan mar walbo qaylinaya aan u fahmay inuu yahay bam. waxaan weydiiyay muxuu yahay bahalkan aan wadato waliba anigoo isku dayay isgeesinimo gareenayo ayaan ku weydiiyay muxuu yahay bahalkan aad isticmaalayso. markaas ayay waxay igu tiri ilaah ayaan ku barinaa oo adkaarta ayaan ku akhrisanaa waa sida xisaabaadkii kale halkan ayaan ku keedsanaa si aan u ogaano intii markaasi aan ilaahay ku barinay. markaas ayaan qabooba ayay tiri taa waxay muujinaysaa dad badan maanta oo gaala ah in laga buuxiyay in muslimku uu yahay kan ugu xun adduunka waliba dadka dhibaateeya. waan filayaa muuqaalkaasna in si wacan uu idinkaga daadagay. muuqaalka xiga ee aan idin haya ayaa wuxuu yahay halkan idin muuqato waa xaafadda Islii. tii dheereed ayaa samaanta ka dhacday. rag dhan oo waaweyn ilaah baa weyne ee soo qaatay budad waliba aanan dagaal u socon banaanbaxyo aan u socon dabaaldeg u socdo. taana ee dheer tahay mid ka mid ah raggii inay soo qaaween waliba oo hormuud u yahay. haddaba sababta ka dambeysa ee loo qaawiyay ninkan ayaa waxay tahay asaga oo weyn ayaa dhaqankooda wuxuu sheegayaa ninka markii uu weynaado in la gudo. ardiintu macaana dhaqamada qaar safool xumo badana ninkan waa la guday. dhaqankooda wuxuu sheegayaa marka ninka markii la gudo in dadko idin la tuso magaalada idin lagu soo wareejiyo. sidaad muuqaalka ka arkaysaan waan idin seedin lahaa laakiin cilada jirta waxay tahay buuqiya ku badan oo lama fahmayo. sidaas daraadeed maadaama buuqa uu aad idin dhibi karo aniga ayaa idin sharaxayo. ninkan waa la guday sida sharcigooda iyo dhaqankoodana sheegaya ayaa waxay tahay in magaalada lagu soo wareejiyo waliba asagoo qaawan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. war dhaqankeenu Soomaaliyeed macaana diinteena se kasii macaana. ilmaha waxaa la gudaa ayagoo yar hadii la gudana gurigooda la geeyaa. ciidan magaalada dhan lagu soo wareejinaano waliba adigoo 30 jir 40 jir 25 jir maanta la leeyahay xaraantii laga jaray xalaasha lagu soo reebay. waa in la dabaaldegaa waa in guud ahaan dadka yaqaanay iyo dadka aqooninba dhaqankooda halkaasi ku soo bandhigan. adigu daawade dhaqanka noocan oo kale ah maxaad uga falcelin lahayd? ra'yigaaga ka dhanka ah muuqaalkaana qaybta commentiga ayaad nagula wadaagi kartaan. muuqaalka xigay aan idin hayo wuxuu yahay gabadhan si fiican u fiiriyo badankiina waxaan filayaa muuqaalkeeda inay igu cusbeen laakiin aad la yaabantiin gabadhan muuqaalkeeda sidaan ma ahaan jirin maxaa sidaan ka dhigay maxaa iska bedelay
dhibaatada haysa maxay tahay ayada ayaa noo sharxi doonto. gabadhan waa mid kamid ah gabdhaha aadka u isticmaasha baraha bulshada noocyadiisa kala duwan, haddii ahaan la TikTok, haddii ahaan la YouTube, badankiinana waa taqaanaan magaceedu waa Ayanita. bal waa kan dhibaatada ayada qabsatay iyo sida ay wax u jiraanba ayada afkeeda hay noogu sharaxday aan isla daawano. waxa isku duuba kaamirada caadiga ah si ay idin tuso xaaladda ku suganaha. horto ilgo'nida iga muuqato u jeedin, dhawanadeeda waa u jeedin, aniga dhan madaxa taa iska xeer tidcaana aan faanteen. habeenay maalin saas u gariira, habeenay maalin waxa iga kor qeylinayo quraan, maalin walba quraan la istaaraa. ani dhasa u il dheeraade dhakhtarka tago HB-ga fuul waa leeyahay fitamiin dhiidaada 35 maray caadi waaye, cilad kale kuma haysato. ma qanani kareena gada waa ogtiin anoo kareen gado oo ayaan hoos u ekaa marka kareenkayga isticmaalayo oo marsanaa waa ogeedeen. maantana waa u jeedin dhirarka iyo saa u ekaa, markaas soo duceyn insha Allah. daawadayaal ugu dambeyn waan filayaa gabadha Ayanita muuqaalkeeda inaad si wacan u daawateen. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad taam siiyo iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inta xanuunka gabadhan haayo mid la mid ahaya guud ahaan inuu ilaahay caafimaad taam siiyo. waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan. haddii tahay booqashadaada ugu horeysay mar kale iyo mar xiga, waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan. sidoo kale waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanayaa inaad muuqaalka inoo qurxisaan oo aad laagta iyo sheerta aad isugu keendartaan si muuqaalkeena u gaaro saaxiibo adigu kala qalb wanaagsan. muuqaalkan mid la mid ah inta kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soomaaliya nabad. Soomaaliya nabad. Soomaaliya nabad. Soomaaliya nabad. nabad baa wanaagiyo naxariis